salaamullaahi calaykum. soo dhowaada saaxiibadeena wanaagsan. marka hore salaan guud ayaan hawada inoo soo marinayaa asxaabtayda igu xidhan channelkaygan. waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in aynu 400 ee qof ama 400 oo walaalaan idhaahde aynu gaarnay ama aynu sanka kula jirno. waxaan aad iyo aad idinka mahad celinayaa waqtiga aad igu lumisaan si aad u daawataan fiidiyoyada. gabigeena waa inuu aragno faa'iido badanaa. waxaan jecelahay in aan waqti ku bixiyo fiidiyoyada oo fiidiyoogan soo gudbinaya noqdo wax micno leh, aanu noqon wax iska soo gudbin loo soo gudbiyay. intaasina mowduuca horaantiisa ay ahaato. maanta barnaamijkan inoo haya aan doonayo inaynu falanqeyno ama aynu gorfeyno waa barnaamijka furniinka. dhibaatada aad iyo aad imika inoogu soo badanaysa gaar ahaan Soomaalideenani, guud ahaan caalamka oo dhan, waa furniinka. aafadaasi waa aafo adduunka oo dhan saameysay. cid walbaaba sibay ula tacaalaysaa. balka Soomaali ahaan maxaa inagu sababa, balse maxaa inala gudboon? maanta mowduuceenan ayaynu ku gorfayn doonaa. waxaanan aad iyo aad idinka raali gelinayaa waqtiyo badan oo channelka ka maqnaado sababa family awgeed. haddii aynu mowduuceena hore uga sii soconno, hafeef. marka hore waxaan ka hafeefanayaa in ay tahay intan ay nii soo gudbinaya aragtideeda oo kaliya. badanaa dadka kugu xidhan ama 400 oo qof waxa laga yaabaa wax badan in dadku ka fikrad duwanaadaan. bal adigu haddii aad hayso fikrada intaa ka balaadhan, qaybta commentiga insha Allah inoogu reeb si aynu gabigeenu wax uga faa'iidno oo aynu u noqono baan kuu dhiibay ama wax iga faa'iidan ka faa'iiday. haddii aynu barnaamijka hore uga sii soconno, haddii aan qodobka koobaad ku soo dhawaano ama dhibaatada koobaad ee ugu badan ee haysata waxa weeyaan dhanka dhaqaalaha. badanaa waxaynu aragnaa qoysas 60% u burburaya dhanka dhaqaalaha. waxaanu isweydiinaa maxaa dhacay, halkii wax iska bedeleen. waxaad arkaysaa waalidku mar walbaaba inuu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisu inuu reer yeelato amba reer yagleelo, balse inta ugu horeysa la gacan qabanayo, marka dambana la leeyahay de isberber ama moogtahay adiga iyo nasiibka ama shaqayso. haddii uu ninkii shaqaysan kari waayo, waa nin aan la qabsan. waxaana dhibaato aad iyo aad u badan nagu haysa bilwadaha ka Soomaali ahaan. bilwada aad u xun baan leenahay. mar walbaaba drugs baan isticmaalaynaa, hadduu ka mid yahay qaadka oo kale tusaale iyo waxyaabo la mid ah. laakiin waxyaabo aad ka noo saameeyay qaadka waa kii maansadii ay lahayd. dadkan qarribanee lumay qaadka waxay yidhaahdaan waa quud xalaalo, qalbigu sifeeyaa, niyadu qaboojoa, oo waa qowtul awliyo. hadduu qaad wax tari lahaa ama qowtul awliyo dadka qaar ku sheegaan, bal waxaad qiyaastaa qaruumaha horumaray wax qaad cunaa jira. intaaba kabayga soo koobsanaya. bal quruumaha horumaray ama dadka hore u dhaqaaqay waxaad aragtay dad qaad cuna iyo ama dad drugs noocan oo kala isticmaala. laga yaabaa inaad aragto dad drugs isticmaala, laakiin sidan aynu isticmaalo qaadka aanu isticmaalin. dhibaatada ugu weyn ayna haysataan waa midaas. dhanka dhaqaalaha 70% ama ilaa 60 faamilada Soomaalidu waxa u baaba'aan dhanka dhaqaalaha. qodobka labaad, mas'uuliyad weyn oo la iska saarin qoyska. qoysku sidaynu ognahay waxa uu u baahan yahay mas'uuliyad, qof maamula, moogtaadaanay dambeeya oo wax badan xeeriya. waxaad arkaysaa faamilo wax yar oo fudud isku furaya. dhibaatadaasna waa ugu daran ee ina saameysay marka loo eego dhalinyarada. dadka waaweyn badanaa furniinku kuma badno, laakiin dhalinyarta aad buu ugu badan yahay. sababtuna waxa ay tahay mas'uuliyad weyn iskama saareen qoyska, haddii ay gabar tahay iyo haddii ay wiil tahayba. haddii qodobka saddexaad aynu ku soo dhawaano, mujtamaca nagu xeeran. tani waa maxay baad is leedahay tolow? mujtamaca nagu xeeran waxaan ka wadaa dadka aan nala degan ama nala degaanka ama ka Soomaali ahaan degaanka aynu degno. badanaa waxaa jira dadku way isku wada daydaan dhammaantood. waxaad arkaysaa hebla oo wax loo soo iibiyay ama hebel oo horumar gaadhay, markaas lagu leeyahay ana waxaasan doonaya. ama ninku marka uu gabadh kale horumar gaadhay bay leedahay waxaasan u baahanahay wiilow, haddaan hayna dee jaw inagu kala wad. dhibaatada ugu daran halkaas ka imanaysa oo isku dayashadaasi mushkilad aad weyn bay. qodobka afraad, dhanka gabadha culays ka yimaada ama dhanka gabadha ninka dhibaato uga timaada. badanaa waxaynu aragnaa faamiladeena ka Soomaali ahaan ayaynu ka hadlaynaaye in aad arkayso gabadh wax micno ah aan ku hadlayn oo ka odhanaysa ma raba ninkan oo kaliya
intaana kusoo gabagabeynaysaa ma waxaan rabaa warqadayda iyo waxyaabo la mid ah waana dhibaatada ugu badan ee ragga qaarkood haysata. waa kii gabaygii lahaa galabtii isbarashada googaalaysigiyo haasaawa goyntii dabcigaaga gaariyo ma dhexgelin akhlaaqde gacantaada midigiyo gaaridii haweenay heshe gacalabaan maankayga geliyee guumays qalloocdiyo garaadaran inaad tahay haddaan garan lahaa sowkaama gaabsadeenoo geesugama weecdeen guul baan filaayee sow gurguuradkaygii god abeesamaan gelin goobtii arooskiyo galbiskiiyo mashxaraddii goolasha iyo dibidiyo adhigii la gowracay markay guu dhalaan iyo garabkayga joogtiyo gocashada sariirtii farxaddiyo galgalashadii iyo laba guddoonkii godolkii jacaylkan gocashada xasuustaa guurkaa xumaadaa geeri kaaga daranoo gudcur iyo habeennimo geeri go'an cidlo ah iyo waa goob abaaroo waa hugaagoo ku gubay. gabaygaasi ayaa noo soo koobaya wax walba oo dhibaato aynaga haysta dhanka aynu ka soo hadalnay ee furniinka. barnaamij dambe ayaan insha Allah ka soo damayn doonaa oo noqon doona insha Allah in aynu ka soo sameeyno maxaynu kaga bixi karnaa dhibaatada ama xalkeeda aynu kaga soo hadli doono. waxaan rajaynayaa barnaamijkan in aan aragtideedo kaliya ka hadlay balse aan aragtideena dhamaanteed ka hadal idinkuna qaybta hoose aad noogula wadaagi kartaan. Assalaamu calaykum.